بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ولا ليال سود هذا برنامجكي aan isku xusuusanaynay sidaan uga faa'iideysan lahayn bishan barakeysan Ramadaan xalqadan ka horeysay waxaan ku soo qaadanay qayb kamid ah fiqh siyaam ama ahkaam siyaam oo ahayd mufatiraat siyaam soomka waxyaabaha buriya ama qofka ka jabiya laba qaybood baan soo hormarinay aan soo tilmaanay qaybta hore waxay ahayd aljimaac galmada isu galmoodan labada qof ee isqaba iyo tan labaad oo ahayd inzaalul mani qofka in uu mani iska keeno sababta yani qofka inuu mani iska keeno soonka ay u jabinayso waxay tahay xadiis qudsigii waa kii Allah subhanahu wa ta'ala u lahaa يعني قفك صوما يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي قفك صوما cuntadiisi cabidiisi iyo shahwadiisiba aniga darteedii buu uga tagayaa marka haddii shahwadii inuu iska daayo ahayd uu isagu iska keenay oo uu doontay hadde markaas waxa weeyaan soonkii halkaas uu ku jabay ku dambaabay isaga toobana laga rabaa inuu soo celiyo maalintaasina soo qadayo laga rabaa yani midka saddexaad برية يعني محو الناقد الثالث أما يعني مثل سدحاد برينا يسجنا صونكا وحوين الأكل والشرب عنت إن لعنه أما عبد إن وحلعبه أما لعنه وأفك لجعبه مجرتي مركع أفك عن طريق الفم أو الأنف أفك أما الصنكة ومركاسي أي جاران جوفكي أما علاشي أي جاران محايا لي cuntada oo la cuno oo in la cabo waa midkii laga soomay way waxa weeyaan asiyaamu an almufattiraat cuntadii cabidiya kamida marka in wax marka yani aan waxna aan la cunin aan waxna la cabin inta aad sooman tahay laakiin hadaad wax cunto oo aad cabto markaas waxay noqonaysaa in soonkaagi uu markaasi uu yani buray maxaa yeelay ilaahay wuxuu noo tilmaamay habeenkii kaliya in wax la cuni karo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswadi min alfajr yani cuna oo caba ilaa yani mugdiga habeenkii uu kaga cadaado iftiinka waa beriga ay kala cadaadaan oo waagu idin bariyo fajarka marka la gaaro inta laga gaaro cuna oo caba markii fajarka la gaaro thumma atimu siyaama ila al-layl markaas soomkiina dhamaystir oo sii wada ilaa imaanintii joojiya cunada iyo cabidi marka cunada iyo cabida oo qofku ula kac u cuno ama ula kac u cabo waxay burinaysaa soonkii baa ay ka burinaysaa ama soonkii baa ka jabay laakiin hadduu halmaan u cuno ama u cabo waxa weeye qofkaasi yani waxa weeye soonkii ka jabi maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii cuno ama caba naasiyan فليتم صومه قفكي عنت عنا أما عبه يسوق هالمنسل صوم كيس هذا ما يصيره لكن محوها يعني إلهي با عنت أن ورابي إنما أطعمه الله وسقاه متك أفراد سجن بورينا يا وحيابها بوري صونك وحكم ذا ما بمعنى الأكل والشرب عنا اللمذة لكن عنا أهين سيدا مثلا irbadahan lisku mudo مثلا glucose-ka qofka xididka laga siiyo muxuu ahaa yani waxyaabo مثلا uu kaga deeqtoomi karo cuntada sida glucose-ka iyo wixii lamid marka galay jirkiisa dariiqa xididkana ay u maraayo taasoo laftirkeedu bimacna al-akli wash-shurbi bay ka dhigan tahay haday sidaa tahay soonkii qofku waa ka jabaya oo soonkiisa sax ma aha laakiin haday irbada lagu muday daawooyin kale ay tahay daawooyin kale oo u baahna oo aan ahayn mid cunto uu kaga kaaftoomi karo oo ma cunto u dhiganta aan ahayn qofkaasi markaasi yani waxba dhimala soonkiisu waa sax oo soonkiisu waa u jiraa way marka yani qaybtan waxaan ku sheegnay laba shay oo ah al-akl wash-shurb waxa la cuno iyo waxa la cabo iyo wixii lamid ah يعني wax la cabo wax la cuno oo looga maarmi karo cunti cabid sida irbadaha yani faleebooyinka ee markaas qofku ku socda ee uu kaga maarmo cuntada oo kale hadii lagu mudo ay ku socdaan qofkaasina soonkiisii
waa uu jabay oo soona uma jiro wey maalinkaasi inuu soo qalleeyo weeye marka qaybtan intaas ayaan ku joojinaynaa hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh